waa sheekooyinka ugu xiisaha badan marka aad joogto dhulka baadiyaha ah iyo tuulooyinka yaryar ee ku xeeran halka magaalooyinka waaweyn aad ugu imaanayso ka sheekaynta siyaasado kala duwan iyo fadhi ku dirriyo joogta ah. Cabdulaahi Cali Warsame Biyood waa aasaasaha deegaanka Qalaanqal oo ka tirsan gobolka Nugaal, waxaana ka sheekaynayaa mid ka mid ah waayihiisii nololeed iyo weerar har cad dhex maray isaga iyo libaax ugaarsi tag ahaa. Cabdulaahina waqtigaasi waxa uu ahaa saantag iyo inuu soo indhiidheeyo deegaan ku habboon miyi magaalo. waan joogay casarkii markay ahayd oo qorraxda gaabatay oo aan ka gaari karin reerkii iyo masaafadii aan ka imi midna waxaan go'aansaday inaan xabad garanuuga ku qasho baliga dhexdiisa. Garanuugtii markii aan qashay qorraxdu way dhacday, dalaq bay tiri. Geed baan imi weyn, ilaahay baa weyne, korna dalad ka ah saa uga soo daladaysan, hoosna ka dheer oo 3 mitir iyo bar ah. dhexdiisana waxaa degi jiray dadka libaaxa ka cabsada oo ka gala libaaxa iyo kanicada laga fuuli jiray. Socodka sahanka oo dheeraaday iyo deegaankiisii noqoshada oo fogaaday, Cabdulaahi Cali Biyood waxa uu go'aansaday inuu ku hoydo habeenkiisii koowaad baliga Qalaanqal, dhanka kalena ma mooga cabsida iyo walwalka badbaadada naftiisa ee libaaxa oo uu durba dareemay cida iyo jabaqdiisa oo ah mid aan loo adkaysan karin. Sida awgeed markii ay dhacday garanuugtii markii aan qolay hilbaheedina soolay geedkeen aan fuulay waxaan maqlay libaaxeedii xoogaa iga jidha. Cabsi badan baa ay gashay. waxaan sir bahalkan anaguna markaas waxaan ahaa nin ka soo baxay magaalo oo aan miyiga aad ugu active ahayn. war waxaan raadkiisa aad aragtisaan u ciidaya xagad caaw naftaada ku badbaadin doonta. xoogaa markaan joogay meel ugu dhow oo biyo qabsil oo baliga meel ka mid ah oo war jeexana xoogaa biyaha ku jiraan mid baa soo taagay libaaxa. wuxuu dareemay sanuuntii garanuugtii aan qalay buu dareemay, wuxuu damcay markaa waana baahaysay carraduna waa cilla toos buu ii soo abbaaray. waxaan maqlay cidiisii oo reen ah. waan burji dhacay anigii, waan geliriyooday anoo dhan timihna way iskaga taageen. geed dhaladiisaan saaranahay oo macaal roobadaydii hilibkay geedka dhaladiisa ii saaran yihiin. waxaan ku talagalay marka waari masida warka ha kaa haro mar haddaad balligan dabcay inaad magaalaysid oo degtid oo deegaan ka dhigatid carar oo baqo wax ka xun ma jiraanin. libaaxii baa cunay baa dhaama. Dareenkiisu waa uu isbedelay, cabsi badan ayuu uu dareemay. libaaxiina waa uu soo dhowaaday oo wuxuuba soo uriyey raqda ugaartii uu qashay maanta Cabdulaahi. waxauna galay difaaciisii ugu dambeeyey iyo xeeladii uu libaaxaasi ku dili lahaa naftiisana ku badbaadin lahaa haddii uu soo weerar tago. raqdii hoostiilay oo garanuugta lafaheedii iyo madaxeedii iyo caloosheedii isdul saarnaa baan qoriga aan haysaa ugu shiishkaas uga bogtay. in yar markaan joogay bahalkii waa soo baxay meel bannaan waa soo dhigay si aad argagax ii gashay. afraqaad iyo reen iyo dhibaato iyo cagajulin cagaha dhulka igu dhuftay intaas ku daray soo raadinaya aan aniga liif iyo arag laakiin raadinaya wax dhaqaaqliya raqda agteeda jooga. haddii aan waxba dhaqaaqa diiday waxaan uga waayay raqdii buu dul yimid. markuu raqdi dul yimid afku gashaday. afka markuu gashadana meeshaas jeeniga dabadiisa ayaan kaga dhuftay qorigii xabadii. wadnahay dhinaca kale kaga soo gufaysay. kor buu u soo haaday. wuxuu yimi aniga dhakadaydii. geedka iga sarreeyay wixii oo dhan 4 mitirba kor buu iga soo maray. saana u fiirshay mise sidii tukuhiiba hawada iga soo socday soo afasa u kala haya. dhacaankiisii baa saa igu soo daatay. afkiisa ka daayay. waan ashahaatay meel aan cararan ma leh. mana boodi karo. jarjar baan geed ku soo fuulay. waxaan isiri markii bahalkan adiga horda ku diliyay naftu waa balaaye goortu kugu soo dhacay xabada dhuunta u gali. bahalkii wariqsideedii meel iska bedelay maaqaan 4 aadin meeshii uu ka qaaday buu 4 aadin saa ugu dhuftay. wuu finiinay. wiyo naftuna waa ka baxday. kadib dilkii libaaxa iyo waagii oo bariyay waxa uu ka soo degay Cabdulaahi geedkii uu habeen ka hor fuulay. waxaana uu guri noqday reerkii uu maalin ka hor ka soo saantagay. waxaana ku soo furay reerkii isla balligii Qalaanqal oo ay taalo raqdi libaaxu. Cabdulaahi waxa uu walwal badan ka qabay in haddii ay xaaskiisu aragtay libaaxaasi bakhtiga ah ay ku noqonayso caqabad kale oo soo wajahday oo ay baqdin iyo fiig badan ka qaadi doonto. balse maxaa dhacay markii aragtay xaaskiisa oo arigeedii la joogta libaaxii oo fuursan muuqaal ahaanna aan loo adkaysan karin aragtidiisa.
saantaan bardo way cararay haday bahalkan aragtay bahalka intii aan ku ogaa in labada leeg buu leegi waa karay afkina raas kala noqday wax laga sheekay kara xaniyo intaas la leeyihiin wax bil aadni u fiirsan kara marka ma bale intuu qarax leeyahay aragay iyo gabadhii wiilkeeda meesha intaan awrtu furayay galay saantii bahalka sudul taagtay ana u jeedaa haraata ku dhufatay aniga waa fajacayba qoftaan islaha agaxay wax ka deeyaysaa hilbiga fiirso waxay tiri hooyo inoo soo daji midaba bahal aabaha dilay waytii waxay tiri maxaad noogu qarisay libaax soo bakti ma habi bayt soo bakti ma hanir waxay tiri nin libaax xabad ku dhuftay sagaara nin xabad ku dhuftay horta ma ka dawaayay aniga hooyadee baa soo sili ku jira dhagax ku dili jirnay adoo bela iska dhigaysa saan u dilayna ilkaha yaafka gafurka baabeen jirnay soo sili ku jira ha haleebay oo adaaba iga daran makaan arkay waxa ku disheen bahalkii dhagax meeshaade bal meel ka dheerba deegaanka meesha bilowgiisa soo ahaa qalaanqal Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe